hambalyo hambalyo Liverpool fans waxaan leeyahay hambalyo meel walba aad joogtiin. xalay waxaa qaadateen 3 dhibcood, kulankiina labaad iyo 3 dhibcood, laakiin doodu waxay ka jirtaa 3daas dhibcood nadiif miya mase nadiif maaha. 3 dhibcood waa qaadateen laakiin 3 dhibcood nadiif maaha. xalay Liverpool 3daas dhibcood waxaa u shaqeeyey refriga u shaqeeyey. ciyaartaas waxaa ka dhacday 3 qalad oo waaweyn. 3daas qalad oo waaweyn 3dooduba waxaa garab siiyeen Liverpool. tan kuwaad waxay tahay kulanka horta wuxuu ahaa big game u ahaa, maadaama kulanku uu ahaa kulan weyn. red cardka 90% waa lagu degdegay. red card horta marka la bixinayo waxaa lagu bixiyaa foul kas ah ama dil bareer ah ciyaaryahan sameeyay. laakiin ninkan la yiraahdo Antonio Gordon targetkiisu waxay ahayd kubadaas inuu ka buundeeyo ninka la yiraahdo Van Dijk. kubadaas inuu ka boobo oo Van Dijk ka qaata targetkiisa saasay ahayd. refriga ciyaarta wax badan check up ma ku sameynin. red card u siiyay say ahaatab red card u siiyay ka dhig go'aanka refriga iskale. red card uu bixin karaa. qaladaadka waxay yihiin horta qaladka oo ninkan Antonio Gordon sameeyay red card waa lagu bixin karaa haddii si loo eego, laakiin ma yahay red card laga baaqan karay. red cardadu waxay u kala baxaan go'aamada refriga qaataan. 2 go'aan waa kan koowaad red cardka ma yahay mid laga baaqan kara oo yacni sidaas wax weyn weyn oo laga socon kara ma yahay, iyo red card aan laga socon karin faldambiyeedka ciyaaryahan galay. tusaale ciyaaryahan gacan qaad toos ah sameeyey, ciyaaryahan si kas ah ciyaaryahan u dilay, iyo ciyaaryahan waxyaabaha munaasabka ahayn sida caayda iyo waxyaabahaas garoonka dhexdiisa ku sameeyey. red cardadaas waxay noqonayaan kuwa aan laga baaqan karin oo la bixinayo. tusaale Van Dijk dhaawaca waxaa ka gaaray lugta qaybta oo muruqa gadaal jilibka inta ka hooseysa ilaa iyo anqowga inta u dhaxaysa masaafada intaas yar u dhaxaysa dhaawaca inta ka gaartay Van Dijk. kubadaasna maadaama kubada meelaha kubada lagula dagaalay ay tahay oo kubadana xilligaas Van Dijk haystay ama Van Dijk 90% la dhihi kara, ciyaaryahankan targetkiisu waxay ahayd isla kubadii inuu aado. yacni waxaadna ku fiirin kartaa meesha qaladka ka dhacay iyo calaamada Van Dijk gaartay. targetka ciyaaryahanka ma ahayn Van Dijk inuu wax yeelayo. targetkiisu waxay ahayd inuu kubadaas ku guuleysto oo Van Dijk loolanka iyo dagaalka ay ku galeen ugu guuleystay targetka ciyaaryahanka. marka maadaama ay ahayn kas cad iyo ninkan u dilay, waxay ahayd red card laga baaqan karay. Premier League waa aragtaa qaladaad kuwaas ka waaweyn in la sameeyo oo xitaa ciyaaryahanada qaar madaxa laga laadayo kubadana iska socota. qaarkoodna waxay red card ku siinayaan wax oo iska basiid ah. marka sharciga oo xiriirka oo Premier League khaasatan refriga ma aha mid fadhiyo. refriga Premier League wuxuu samaystaa wixii asiga ka yimaado, wuxuu rabo samaystaa, soo raboona u dhaqmaa. wax sharci ah kuma dhaqma. sharci hadday tahay red cardkaas waa laga baaqan karay. waa kan calaamada meesha Van Dijk ugu taala si fiican u fiiri. wuxuu beegsaday ciyaaryahankan inta kubada lagu dagaalamo. dagaalka kubada meesha ka dhaca uu ka beegsaday. taasna waxaa la dhihi karaa kas cad ciyaaryahankan uma aadin. qaladka labaad aan u soo tallaabno. qaladka labaad waa kan midkaasna ila fiiri. kubadan kooxda kubadda cagta Newcastle waxay soo qaadanaysay corner. ciyaaryahankii madaxa gali lahaa waa ka saasaa loo qabtay. kubadiina si fudud waxaa ku qaadatay Liverpool. labadaas hadda fiiri, midkaas red cardka lagu bixiyey iyo kan kee qalad sax ah. tan waxay ahayd penalty clear ah
waxay ahayd rigoore clear ah oo qofna la weydiinayn, rigoore cad. ciyaaryahan hadduu asagoo kubad madaxaynayo ama koorna lasoo karoosay, ninkan gadaal ugu imaaday labadiisa gacmoodu saas isugu laabay. red card, taas iyo tantee red card ah. tan xigta midan penalty ma tahay mase ma ahan? penalty caday ahayd, liverpool lama siinin, horaa loo socday. qaladkii labaad waa oo liverpool lagu caawiyey. kan saddexaad aa u soo tallaabna. ciyaartan waqti horaa waxaa kooxdan red card ka qaatay ciyaaryahan rifriga, waxaa laga rabaa inuu ahaada nin dhexdhexaadiye ah. ciyaarta qaladaad waaweyn oo saas ah kama dhicin. waqti oo kubaddaas la joojiyey oo saas u badanna ma jirin. yacni waqtiyo waxyaabaha kulan walbay ka dhacan oo kuwan oo hadda la joojinayay ama intaas kulan walbay ku dhacdaa. waxaana lagu daraa 3 daqiiqo 4 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo inta u dhexaysa. waxaa lagu daray 11 daqiiqo 11 daqiiqa. fiiri inta karaamkayga ninkan wuxuu leeyahay inta karaamkayga waxaan diyaar u ah inaan caabiyo liverpool si ay u qaadato 3 dhibood. qaladka saddexaad ku ogaan kartaa. kooxdan red card ay qaadatay iyadoo red card haysata ay inta la soo gaartay. ciyaarta waa 2-2 draw ah. marka ninkan referee wuxuu go'aan ku qaatay ilaa liverpool 3 dhibood ku helaysid inuu ku dadaalo oo muujiyo taageerada iyo garab istaaga liverpool. 11 daqiiqo ku sii daray. weligeed kubadda cagta kama dhicin. kooxda marba hadday red card qabto, qaladaadka dhacayna waqti oo kubadda la joojiyey oo barnaamijyo waaweyn dil saas iyo nin garoonka laga qaadayo, nin garoonka ka dhex suuxay iyo waxyaaba dad